waa la ogyahay gantaalkan oo waa la baaray inuu yahay gantaal ruushku leeyahay laakiin ciddii soo ridayba hadda calaamatu su-aal la saaray madaxweynaha maraykanka Biden oo mar dhaweyto la hadlay ayaa yidhi anigu ma aaminsani inuu ruushku ogaan u soo duqeeyey oo uu gantaalkaasi ku soo riday Poland waxaan aaminsanahay buu yidhi markaa inaanu ka suurtoobin inuu ruushku arrinkaasi sameeyo oo markaas uu soo duqeeyo Poland laakiin saaxiibadayda ama saaxiibkayga waddanka Poland baadhista ay sameeyaan wixii ka soo baxa ayaynu eegaynaa buu yidhi ra-iisul wasaaraha Poland oo degdeg haddaba isugu yeedhay mas-uuliyiinta ammaanka ayaa baadhis degdega ayaa hadda socota weliba natiijo ayaa ka soo baxday waxaana mas-uuliyiinta ammaanka ee Poland ay sheegeen oo yidhaahdeen markaa gantaalka ruushkaa leh laakiin ruushku muu soo ridin bay leeyihiin ama soomuu ridin ma hubno ayay leeyihiin markaa ruushku soo riday dee haddaba yaa soo riday weeye su-aashu dhinaca kale wasaaradda difaaca ruushka ayaa beenisay in iyagu gantaalkan ku rideen Poland waxaanay ku sheegeen inay tahay daandaansi dagaal oo badheedha oo ay NATO doonayso in ruushka ku soo weerarto laakiin waxay hoosta ka xariiqeen inuu ruushku cashar aanay filaynin u dhigi doono xulafada NATO oo cawaaqib ay qoomameeyaan ay kala kulmi doonaan dhinaca kale madaxda reer galbeedka ayaa shir degdeg ah leh waxaanay rabaan inay go'aan degdega qaataan laakiin waxaa la yidhi kuma degdegayaan inay ruushka weeraraan way ka cabsanayaan baa layidhi tallaabo ay ka qaadaan ruushka oo ay weeraraan kuma degdegayaan waana ka baqanayaan baa layidhi waxayna ku doodayaan gantaalka ruushku ku dhacay Poland yaa ku soo riday waayo ciidanka Ukraine laftarkooda ayaa isticmaala gantaalaha ruushka uu sameeyo oo waqti hore uu ruushku markaasi ka iibiyey marka Ukraine laftarkeeda ayay farta ku godayaan inay rabto in ay isku dhufato oo dagaal ka dhex bilowdo ruushka iyo xulafada NATO maadaama ay NATO taageero toos ah aanay siin markaasi Ukraine oo siin taageeradii ay ka doonaysay Ukraine markaasi ay NATO siin weyday oo dhowr jeer ayay ka dalbatay in NATO ka garab dagaalanto Ukraine oo difaacaan ama hawada Ukraine ka dhigaan no fly zone taasoo Maraykanka iyo Ingiriiskuba diidma cad ka muujiyeen in haddii ay hawada Ukraine xidhaan ay taasi keenayso markaasi in diyaaradaha ruushku soo ridaan kadibna markaasi madaxa ay isla geli doonaan oo dagaal ka dhex qarxi doona ruushka iyo Maraykanka Ingiriiska dagaalkii saddexaad ee adduunkuna uu halkaasi ka bilaabmi doono oo nuclear la isla dhici doono taasoo reer galbeedku aad uga cabsi qabaan haddaba maadaama reer galbeedkii iyo ruush sii kala fogaanayaan ayaa la sheegay inay bilahan dambe jirtay cabsi ah in laga dhex faa'iideysto oo dagaal laga dhex abuuro waana ta keentay in 2 maalin ka hor ay kulmeen madaxa sirdoonka Maraykanka CIA-da iyo ka ruushka oo Turkiga ku kulmay si ay markaasi waxay wadaagayeen baa layidhi xog ah mogtahay iyo sirro ah kaasi oo hoseeya in waxa wixii iska hor keeni kara in ay isku dhacaan marka Maraykanka iyo ruushku ama de xulafada NATO iyo ruushku in laga fogaado iyo wixii isku dhufasho ah moogtay iska horkeenid ah ee la wado oo dhan inay markaasi isha ay ku hayaan oo iska ilaaliyaan labada dhinac inay isku dhacaan haddaba 2 maalin ka hor buu shirkaasi ka dhacay Turkiga arrintan haddaba gantaalka Poland lagu dhuftay baa hoosta laga xariiqay waxaana ay sheegayaan ay ku doodayaan madaxda reer galbeedka intooda badan iyo weliba sirdoonkooda iyo weliba dadka falanqeeya moogtahay arrimaha caalamka waxay sheegayaan in laga yaabo markaa in ciidamada Ukraine ay gantaalkaasi toos ugu rideen Poland si markaa Poland mar haddii la taabtana sharciga NATO waa ka dhigaya in hal wadan haddii la soo weeraro ka tirsan NATO in markaa NATO dhaman ay kacayso oo qowl baa ka yaala moogtay qowlkaasi fulinayaan ama heshiiska qodobka 5 kaasi oo ku qasbayeen inay fuliyaan degdeg baanu Maraykanku dagaalka u soo galaya markaa mar haddii Poland la taabto oo moogtahay dagaalkii Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska waa saddexda ugu waaweyn iyo Turkiga oo wax waliba isku wadanka labaad ee ugu ciidanka badan NATO intaasba waxay ku qasbayeen markaa inay ruush la dagaalamaan markaa taas laga meermeerayaa moogtahay darteed waxa la sheegayaa in ay Ukraine doonayso maadaama dagaalka ka batay oo ruushku si walba moogtay u galay waxay doonayaan markaa inay isku dhuftaan baa la yidhi NATO iyo markaa ruush oo sidaasi ayay iyadu markaa kaga badbaadayso dagaalkii waa la sheer garaynaya
haddaba si kasta ha ahaatee waxaa hadda socota weli moogtahay shirar badan oo ay qabsanayaan madaxda reer galbeedku oo isku imanayaan bal jawaabta laga bixin doonaa nooc may tahay marka dad badan ayaa wadnaha farta ku haya oo sheegaya in haddii ruush iyo nato ay dagaalamaan dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa bilaabmaya leeyihiin waana kii ugu darnayo nuclear baa laysla dhacaya waxaanu ballan ku qaaday putin haddii ay hal tallaabo nato soo qaado inuu gantaalihiisa nuclearku waa wada diyaar wuxuu ku wajeediyey dhammaan wadamada reer galbeedka oo dhan waan ridayaa buu yidhi weliba arrinka ugu weyn ee ka cabsi qabaan reer galbeedku waxa weeye ruushku wuxuu haystaa hubka aan moogtahay difaacyada maraykanku qaban karin hypersonic buu haystaa oo moogtahay jabaqda ka dheereeya kuwaasi oo xitaa ilaa hadda ay u suurtoobi waday maraykanka iyo reer galbeedku inay samaystaan gantaalahaasi jabaqda ka dheereeya ayuu nuclearka kusoo rakibayaa wax qabanayaana ma jirto meel kastaba halkeedu ku dhufanayaa baa la leeyahay waa sida ay sheegayaan moogta khubarada militariga maraykanka iyo wasaaradda difaaca maraykanka qaar u hadlay oo maalmihii ugu dambeeyey ilaa moogta bilihii ugu dambeeyey waxay sheegayeen markaasi inaanay doonaynin in dagaal nuclear la galo waxaa kaloo caddeeyeen in hubka hypersoniga ka dheereeya jabaqda moogtahay inaanay haysan maraykanku sidoo kale uu ruushkana hadda haysto ruushya china uba haysta way kaga horeeyaan marka runta la sheegaya maraykanka ma haysto maraykanku hubkaasi jabaqda ka dheereeya 5 jeer kaasi ugu soo rakibayaan adii doonaa nuclearka marka intaanu ruush baabi'in reer galbeed baa baaba'aya waa runtu siday tahay moogta mana doonayaan reer galbeedku in dagaal saddexaad adduunku dhaco oo barwaaqadan iyo moogta horumarkan iyo dhaqaalahan caalamka ay u talinayaan ay haystaan dee ma jirayo waa calayha waa lagu kala tegaya adduunka waxay noqonaysaa markaasi in cudurro faafa iyo balaayo meesha ay ka dilaacdo oo kadibna sidii bal cudurada iyo wax cawaaqibkeedu haraya maaha waa duni baabaaday uun kasoo qaad taasay diidan yihiin markaa dagaalka saddexaad adduunka way ka meermeerayaan waxay doonayaan umagta culaaqabataynaha iyo howlahaasi in la wado laakiin in la isku dhufto ay hadda ka cabsi qaban cabsida ugu weyn ee haysata reer galbeedku waxa weeyaan in laga dhex faa'iidaysto oo moogtay maadaama Ukraine khaatiya billahi taagan tahay naata dadteed baad ku biiraysaana uu ruushu weeraray marka waxay doonaysaa in isku dhufataba iyadu baa la yidhi wasa lagu eedaynayo oo moogtay khubarada qaarkood ayaa hadda aad moogtay farta ugu godayay Ukraine le ruushku ma dhaco laftarkiisu dama doonaya in adduunku baaba'e dhaqaalaha caalamku iska socdo doonayaaye laakiin markuu arkay in jiq ku tahay uu ridayaadii saas ballan qaaday isagu marka waa sababtu madaxweyne Biden u leeyahay anigu ilaa iyo iminka ma aaminsani buu yidhi inuu ogaan u soo weeraray ruushku arrinkaa lagu noqdo la baadha buu leeyahay saxaafadda isagoo mar dhawadu warramayay waxaanu sheegay inaanay ka suurtoobin ruushku inuu dagaal la gala nato uu bilaabayo bal ha lagu noqdo buu leeyahay marka haddii baymka lagu noqonayaa Ukraine marka eedda loo jeediya laga yaabaa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay inay ciidanka ruushku si bareera oo ulaka ah u weerareen deegaanada dalka Poland xilli ay wadeen duqeymo xooggan oo ay ka fulinayeen diyaaradaha dagaalka ruushka iyo gantaalihiisa ridada dheeriba kaasoo markaas ruushku ku garaacayay magaalooyinka iyo deegaanada Ukraine ruushka ayaa lagu eedeynayaa inuu si bareera oo cad u duqeeyay Poland isagoo cadho ka qaaday shirkii wadamada ugu horumarsan caalamka ee G20 loo yaqaano kaasi oo loo diiday baa la yidhi inuu Putin ka soo qayb galo shirkaasi waxaanay keentay markaa jees in ay ku sameeyaan madaxda reer galbeedku gaar ahaan madaxweynaha Ukraine oo loo ogolaaday inuu shirka khudbad ka jeediyo ayaa ku jeesay markaasi Putin oo ku sheegay markaa in hadda uu aad ugu faraxsan yahay in shirkii la odhan jiray G20 hadda kadib G19 la odhanayo oo markaa ruushkii laga saaray taasina ay tahay guul Ukraine soo hoyatay haddaba madaxweyne Putin ayaa la sheegay inuu jawaab cad isla markiiba ka bixiyay isagoo markiiba duqeymo aan kala joogsi lahayn ka bilaabay dhammaan magaalooyinka Ukraine oo waliba uu beegsaday shirkadaha dhaliya energy-ga iyo korontada oo uu cagta mariyay xilli lagu guda jiro qaboobihii ugu darnaa oo Ukraine ay gashay oo barafku inuu laayo dad badan laga yaabo